muqdisho oo wajiga ku haysa badweynta hindiya waa magaalo aad qadiimi u ah magaceedana waxaa la yaqaanay waqtigii faraacinta masar 6 ama 7 qarni ka hor magaalada muqdisho waxaa lagu dhisay masaajidyo iyo minaarado aad u qurux badan kaasoo ka haray raadkii taariikh yeelashadii carabta iyo kuwii beershiya muqdisho ma jirto magaalo u eg oo afrikada madow ah maanta muqdisho waa caasimada Soomaaliya dhismo casri ah iyo kuwa kale oo aad qadiim u ah dad badan iyo gawaari kala duwan ayaad ku arkaysaa meel walba waxaad kaloo aad ku arkaysaa magaaladan muqdisho ganacsiyo aad u tiro badan oo dadku ay ku kala iibsanayaan alaabo ay isticmaalaan maalin walba kuwaasoo isugu jira alaabooyinka guryaha cuntada iyo waxyaalo aad u kala badan oo kala duwan Soomaaliya waa wadan xor ah laga soo bilaabo sanadkii 1960kii waana wadan aad u weyn oo leh xeebaha kuwa ugu waaweyn ee Afrikada xorta ah iyadoo lagu qiyaaso wadanka Soomaaliya inay ku nool yihiin 1980kii oo waqtigan ah dad u dhigma ilaa iyo ama ku dhow ilaa iyo 3 milyan oo qofood magaalada aad ay u ballaaratay waana loo jeedaa halka saac ama 7 subaxdii xafiiska milishiibiyada ama dawladda hoose ee magaalada muqdisho saad u jeedaan dadka waxay saf ugu jiraan dhul bixintii milishiibiyada ee muqdisho ay ku samayso Soomaaliya waa wadan aad faqiir u ah dadka waxa soo gasha lacag aad u yar waxaana ka arkaysaa dadka Soomaalida markay suuqyada ay tagaan inay wax soo iibsadaan aad ayay ugu adag tahay lacagaha adag ee ama lacagaha qalaad Soomaaliya waxay ka soo gashaa dhoofinta kalluunka muuska iyo xoolaha nool lacagtaas oo ay ku bedeshaan batroolka looga baahan yahay wadanka Soomaaliya warshado sida u fara badan male waxa laga yaabaa inay ku yeelaan dhowr warshadood kuwaas oo soo saara dharka iyo cuntooyinka ay isticmaalaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho موجوداً ويلكان ير maalintii dhan hor iyo gadaal ayuu socdaa asagoo gacanta ku haya qalabka tarashka waxa dhacda in mararka qaarkood dadku ay yiraahdaan wiilkan aad ayuu u yirihay shaqada soo kuma cusla anigu laakiin waxaan u malaynayaa wiilkan qof nasiib badan waayo 45 sano ka hor markaan bilaabay isla shaqadan wiilkan yar samaynayo ma jirin qalabkan aan hadda adeegsano shaqadan aad ayay u adkayd waayo qorax iyo dabeel ayaan ku shaqayn jirnay ma jirin meel sidan oo kala ah markuu roobka da'ana alaabta aan samaynay oo dhan way naga halaabi jireen waxaan samaynaa dharka alindiga ah oo wadankeena Soomaaliya aad looga isticmaalo kacaanka ka hor shaqadeena aad ayay u cusleed isla meel kama shaqaynin waxay dantu nagu qasbi jirtay markaan alindiga samayno inaan baa ama qof naga gata u raadino suuqyada
laakiin hadda dawladda ayaa naga iibsata wax walba aan soo saarno xisbiga hanti wadaagga ayaa go'aankaasi gaaray waana isla shaqeynaa faa'iidana waa kala qaybsanaa dhismahan oo ah xarunta xisbiga ee xaafadda Boondere waxay ka mid tahay 16 xaafadood ay ka tirsan tahay magaalada Muqdisho. dabaldegan wuxuu ku dhamaadaa tribuunka iyadoo fadhiyo madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre isagoo siinaya bilad kala duwan kuna dhajinaya calaamada kala duwan ee shaqaalaha. Soomaaliya waxa aad u xumeeyay dadkii ay xulafada ahaayeen. Mareykanka waxay yimaadeen markii xornimada ay Soomaaliya qaadatay, waxayna ka tageen markii kacanku u dhashay. Kii Ruushkana waaba ka sii yaraa. Dawladda maanta waxay isugu yeertaa hanti wadaag iyo wadaninimo oo ah waxa kaliya ay wadankan Soomaaliya uu kaga bixi karo dhibaatooyinka soo foodle iyo kuwa hadda ay ku dhex jiraan. Muqdisho waxa ka buuxata beelooyin ay ku qoran yihiin propaganda sheegaya waxyaalaha xisbiga iyo kacaanka uu qabtay iyo dhibaatooyinka uu gumaysiga wadanka u keenay. waxyaalaha caanka ah ee Muqdisho lagu arko waxa kamid ah geesiga Soomaalida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo la dagaalamay Ingiriiska, Talyaaniga iyo Maxaarada ka soo dhacay 20 sano ugu horeeyay qarnigan. dhismahan aad u jeedaan waa sarta munishiibiyada ama dawladda hoose ee Muqdisho waxay ahaan jirtay dhismihii laga xukumayay 10 sano u dhaxaysay 1950 ilaa 1960 xukuumadii ku meel gaarka ee Talyaaniga loo yaqaanay Fudushaariya kaasoo xukumayay ilaa iyo Soomaaliya ka hesho xornimada 1960 xafiiskan weyn ee dhismihiisa waxaa hadda fadhiya duqa magaalada Muqdisho Yusuf Ibrahim Abu Ras waxaa kaloo jira talada dhagax tuur kaasoo muujinaysa in ninka Soomaaliga ah uu kula dagaalami karo cadawga soo adduunka ah isagoo dhagax kaliya gacantiisa ku haysta. waxaa kaloo aad Muqdisho ku arkaysaan taalooyinka gumaysiga Talyaaniga uu ka dhisay caasimadan. taladan oo loo dhisay markuu socdaal ku yimid magaaladan amiirkii boqortooyada Savoia Umberto ee wadanka Talyaaniga waxaad arkaysaa ilaa iyo hadda taladan loo dhisay Umberto di Savoia inaysan waxba iska bedelin dhismaheeda. waxaad kaloo arkaysaa guriga loo yaqaano Casa di Fascio oo Talyaaniga waqti hore ka dhisay Muqdisho. iyo waxaad arkaysaa kaniisada weyn ee Catholic ah ama Katoolikada ay ka dhisan bartamaha magaalada Muqdisho. haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene haddii aanay qaban qaabinayn qori ma tuureene ala tariya qoquma dilay waxaad u jeedaa gabya Soomaali ah oo la yiraahdo Ibrahim Mirno isagoo ku gabiyaya gabyo ka soo horjeeda gumaysiga farabadan ee Soomaaliya soo maray qaasatan gumaysigii Xabashiga. haddii aanay qaban qaabinayn qori iyo dagaal qowda ma hayeen ardi sababa kuma soo qubeen ku baqoodun وانا قانعي قلبي كان كجاري ميشانيو قبض كديريدي حدا قماتو ترشو أفرتين تنقف كدي وين مكاهي قاسي يبيت كيبا وغوري تراي ميلي غبتي يا فركانا قابلي ما تكتي ودنك تليانيغا ها كون سقال بقول صدق انتو ايان تغي halkee ka tagtay Roma laakiin Napoli dekreed ayaan ka degay
waa markii igu horeysay noloshayda aan markab raacay askarta iyo shaqaalaha markabka waxay nagu yiraahdeen Itaaliya ayaa tagaynaa Mussolini ayaan soo arkaynaa safarka aad ayuu dheeraa jirabadeed ayaa igu dhacday Napoli ayaan ka soo degnay waxaana u gudubnay magaalada Roma oo aan tagnay xero askarta lagu tababaro anigoo bilaabnay tababarkii dheeraa ee askarnimada aad ayuu u dhibadnaa waxyaalaha aan xasuusto waxa kamid ah in Roma ay ka kululeed Muqdisho dad badan oo dhalinyaro ah oo Muqdisho ka tagay ayaana israacnay waxay noogu yeeri jireen magaca Dubad dharkeena uu ka duwanaa kuwa askarta Talyaaniga koofiyada baalka daawuska ayaanu gashan jirnay waxa kale oo xasuusta Mussolini oo mar walba noo qodbeen jiray inagoo saf ku gali jirnay wada la yiraahdo Via dell'Impero dadka wadada taagan ee Talyaaniga ahaa mar walba markayna arkaan askartan ka timid Afrika ee u dagaalamaysa dawladda Talyaaniga aad ay ugu faraxsanaayeen waxaana arkaysay iyagoo mar walba noo saxabtumaya markaanu soo marno wadooyinka ku yaala magaalada Roma waxa aad wax uga xasuusta waqtiga Talyaaniga ninkan odayga ah oo la yiraahdo Qaasin Hilowle Qaasin wuxuu deganaa Muqdisho waqtigaas waxaana loo yaqaanay nanees aad iyo aad caan u ah oo la yiraahdo Skifo Qaasin Hilowle waa 70 jir wuxuuna dhalay fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed Faadimo Qaasin Hilowle Qaasin Hilowle wuxuu aad u jeclaa heesaha Talyaaniga laakiin waxa dhici jirtay mararka qaarkood inuu u bedeli jiray heesaha Talyaaniga luqadda Soomaalida waageesiyadii xornimada Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dhaqdhaqaaqyadii ugu horeeyay ee ka soo horjeeday gumaysiga madaxweynaha Soomaaliya Siyaad Barre wuxuu guddoonsiiyay bilad caalami ah goorma magaca Skifo lagu bixiyay mar walba waxaan ku heesi jiray heeso Talyaani ah waxa aad u jeclaa fanaanka Carlo Ponti heesu qaadi jiray oo la yiraahdo Skipa marka dhalinyarada waxay maqleen Carlo iyo heesi Skipa waxay u maleeyeen Carlo Skifo marka waxa dhacay waxa isku ekaaday magacii heesta oo ahayd Skipa iyo dhalinyaradii oo u maleeyay magaca inuu Skifo yahay marka mar walba jidka aan marayo qof walba oo dhalinyarada kamid ah isnaqaan isla heesi jirnay waxay ugu yeeri jireen haye Skifo iska waran maanta maxaad ka xasuustaa waqtigii Talyaaniga uu joogay Muqdisho waxa igu horeeyay aan xasuusto waa iyagoo furay dugsiyo hoose iyo iyagoo bilaabay garoomo sportiga lagu ciyaaro Soomaalida waqtigaas ma jecleen inay luqadda Talyaaniga bartaan hooyaday lugta ayay mararka qaarkood iga xiri jirtay imana ogolaan jirin inaan luqadda barto iyadoo u maleysay wax aad u xun dadkana ma jecleen ilmahooda inay geeyaan meelaha wax lagu barto markii dambe dadka waxay ogaadeen in haddii aad baratid luqad ajnabi ah inay maalin uun ku anfacayso sida daraadeed dad badan ayaa caruurtoodii keenay iskoolada Talyaaniga iyadoo baray sportiga iyo luqadaha oo Talyaaniga ah oo markaas ay dhigayeen macallimiin ka imaaday wadanka Talyaaniga weliga ma tagtay wadanka Talyaaniga maya sabab nasiibkayga ma noqon inaan tago waan jeclaa inaan tago Itaaliya si aan u arko magaalooyinka Venezia Roma Milano Torino see ku baratay luqadda Talyaaniga weligay iskool uma tegin si aan u barto luqadan waxaan ka bartay garaash anoo aad u yar waxaan u shaqayn jiray nin Talyaani oo la yiraahdo Francesco Banano gurigiisa ayaan tagi jiray ninka cuntada u kariya ayaan la hadli jiray ilmihiis ayaan la ciyaari jiray si dhibir ayaan ku bartay hatta waxa gaaray heer inaan aqriyo jaraa'idka af Talyaaniga buugaagta waxa kaloo la hadli jiray ardayda Soomaalida ee luqadda baranaysay anoo weydiin jiray waxay maanta soo barteen markaan weydiiyo waxay ii sheegi jireen in maanta loo soo qoray ABC-ga Talyaaniga ah
markaas ayaan waxaan akhrin jiray waxyaalaha ay soo qorteen iyo annagoo wato waraaq yar ayaan ku qoran jiray waxyaalaha ay ka soo bartaan iskuulka maanta markii dambe waxaan gaaray heer ah in heesaha talyaaniga aniga gacantayda aan ku qorto aan heeso ama u bedelo iyadoo laxanka isku mid ah luuqadda Soomaaliga marka aad ay u dhib badneed sidaan u barto luuqadda talyaaniga laakiin waxaan ogaa luuqad walba in la baran karo adoo xataa iskool u tagin haddii aad isku xujisid inaad barin kartid luuqad kasta marka dhibkaygaba ha ahaatee laakiin waan bartay luuqaddii talyaaniga ahayd